dhakhtarkan Soomaaliyeed ayaa in badan uu ku guda jiray cilmi baaristan uu guusha ka gaaray tan iyo 90meeyadii isaga oo markaas la soo maray marxalado kala duwan iyo duruufo markaas uu la daaladhacayay. Daawadan lagu daweeyo kansarka ayaa waxa ay noqotay mid dhaxalgal ah oo markaas wax weyn ka tari doonta in lagu daweeyo dadka la ildaran xanuunkan in muddo dawadiisa la la'aa. Dr. Maxamed Cabdiraxmaan oo markaas loo yaqaan cajaa'ib ayaa dadaal weyn u galay in daawadani ay noqoto mid dhaxalgal ah isla markaana waxtar weyn u noqoto ummadda la deriska cudurkani. Daawadani waa daawo chemical pharmacology waxa loo yaqaano daawooyinka ka kooban chemical maadooyin chemical ay ka kooban yihiin. Marka daawadani waxay qusaysaa inay disho waxa nool jirka bini'aadamka galayo dhan inay disho bayadu u taagan tahay haba ugu daadsanaado fayraska laakiin jeermiska bakteeriyada iyo kansarku waxay qaateen 3 maalmood cilmi baaristii ugu dambeysay oo hadda laga daba haray oo meel la iska saaray oo aan ka daba noqon lahayn kansarka iyo bakteeriyada iyo jeermiska saddexda caalam waa isku awood oo 3 maalmood ay ku sameeyaan oo ku dhimanayaan laakiin gooryaanku waa 10 maalmood fayraskuna ugu yaraan waxa weeyaan ka loo yaqaan jadeecada oo isagu qaatay 2 maalmood inta kalena way ka badan tahay. Xuseen Cabdulle Saalim ayaa ka mid ah dadkii lagu daweeyay daawadani kansarka oo isagu markaasi kaga dhacay dhuunta ilaa iyo dhafoorka. Daawadan markii uu cunay kadibna xaaladiisa caafimaad aad ayay u soo hagaagtay oo xanuunkiiba uu meesha ka baxay. Waxaan ku leeyahay 10 qadro ama 10 tilaabo ma qaadi karo laakiin maantadan ilaahay maadis waxaan la xawaa ilaa kilomitir waa إمتى استعمالي سيد داودان؟ كان لبعض ما الموضوع الاستعمال. أوكي بارتانا دي آد سميسي ما جبي جوده نيجاتيف أي صباحي. نيجاتيف ولا كانوا ويانا وانا إنا. أوكي إن هدي حنونكي آد كبسكوتي أو إلهي ما هديسي حالة ضعف ما أي أوكي أي تحي. ما حد كذا محل جاك سعره وعي إن ماشان إن كتبه كجرته دكتور ayaa u tagay wuxuu yidhi xasaabta oo liidado xibaaleyna sootiya ayaa xogaad isku dhagan ayaa waxaa loo baahanyay doktor wanaagsan oo kala qaado meeshaas amariyar ayaa loo baahanyay waraaqadeedan waa wada oo kala sheekeynaya inamaa dhinacan kale inta oo يعني حنون كان تويايو بشبيه سيده ayaad ku ogaatay in Dr. Maxamed Cabdiraxmaan inuu daaweeyo xanuunkan wallahi waxaan ku ogaaday meeshii intaan ugu joogo meeshaan fadhiya ayaa waxaa yimid wiilkan uga sheekay sheekadayda weydii kadib wuxuu yidhi waxaan ku hayaa mid daaweeyo waxaan yidhi soo gaar تلاقي التليفون ودري ويجيب دكتور محمد عبدالرحمن سديان سكور يصني ما انتي لبنا داود يا يوتوسي ماشي بالله داود هكذا وينتي وحي وابك بحب هذا موحى لسديه كرا حالة عافيمات boqolkiiba boqol way fiican tahay xanuunkana boqolkiiba boqol uu ka tagay alxamdulillaah rabbil aalamiin waxaan sheeg waa dambi wallaahi alcadiim maanta waxaan sheeg waa dambi ilaahayna shaahidu ka yahay sida ay dhaqaatiirta sheegaan xanuunka kansarka ama unugyadiisa waa mid awood u leh inuu ku faafo meelo badan oo jirka bini'aadamka ka mid ah unugyadiisana si weyn ayay u tarmaan jirkeena waxaa laga helayaa bilyanis unugyo ah oo markaas hawlo kala duwan ka qabta jirka waana nidaam aad u adag fahamkiisa unugyada qaar ee jirka insaanka ayaa waxaa dhici karta in kontroolkooda uu lumo unugyada kansarkana waxaa laga yaabaa inay ka faa'iideystaan kontrool la'aantaas oo markaas si dhaqso ah ugu fidaan jirka qaybihiisa kale
unugyadan ayaa waxaa lagu magacaabaa tumor waxaana dhici karta in kansarka jirka insaanka si dhaqsa ugu fido halkaas oo qofka noloshiisa markaasi halis ku gasho lagana yaabe inuu dhinto. waana markii ugu horeysay taariikhda insaanka inta la og yahay qof dhakhtar Soomaali ah oo markaasi soo saara xanuunkani caalamka daawadiisa u caalwaayay. Maxamed Cali Juuxa, telefishinka Puntland, Sanca, Yemen.